السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال صود هذا وولاشين صفية فارح محمد سدا يجبرتين برنامج كاني وأن دير قلنت كساب سنة وأيدين سو قل جري إن ما أنتي وقتي أن هرس وقل جري ما أنت وقتي وحنسوا قلي أو وقتي دنبقة وقتي جاسان وقتي هلي هداي معركتي waxaan soo sheegay in aan maaragtay waqti aan helaynin oo laakiin hadda waqti yar oo aan soo helay aan rabo inaan wax yar kalimaad yar inii faa'iideeyo kalimaadkaas yartana saa ku aragtaan title-keyga aad dareemi kartid waxaa ku qoran xagee waqtigaaga ku lumisaa, waqtigaaga xagee baa geysaa, waqtigaaga see u isticmaashaa mise adiga waqtigaaga ku isticmaalo. waa labo questionka aan ku weydiinayo adiga right now hadda ku jiro qadka, adiga hadda i fiirsanayo ama maaragtay dhageysanayo. labada su'aal si tartiiba ma si aad maaragtay oo daacad ah soo weydii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هدا إما خليسان ولا أحب إنا إما خليسان كلي هذا الكسب لا وأنا أوجه هنا إما خليسان إن شاء الله. لو السؤال الربع إنه كويديو تايمك أديك ما استعماله مثل تايمك أديك كو استعماله صوبته وحاي السنة لو أتني أفر ساعة ضد لو أتني أفر كساعة ضد هي ستيد والله سبحانه وتعالى وكسيه thank you نور وما حتسنتاي إن لو أتني أفر كساعة ضد هي ستيد time كاجا محاكو دمسا إن reflection ما سميسا إن وقتي سو كعديد مركز صلاة الصبح تكتيد وقتي كلا صلاة كلا ودحيس وقتي بدنا ودحيسو أما الشقو أما وح عقبنا لهاد ميس في رسا حاجة وقتي يكون ميا يا سلاح الله يا وقتي يقاتو سؤالها اسمي سويديسي لبو لو أعطني أفريقيا ساعة ضد ما كفكرتي إنه وقتي بلارين يهي هدي حتى عاد ماركتي نفس هذا أساسي درالي هذا نلقى يهي هدي عاد لبس ساعة ضد مالنتي أساسي نفس هذا ماشي جاري لهد ويجي تدور مالين واي هدو الله سبحانه وتعالى نفتك وقسمه تدور ذا مالين عاد هي ستيد لو مالين أو نفس هذا أجلسي انتاس ماركتي أو نتيجة أجاري لهد لو ده سؤال واتاس لبس ساعة أجلسي تدور مالين نتيجة أجاري لهد iyo waqtigaaga adoo honest nafsadaada u ahada now aan kula hadlayo xagee ku dhumisaa mise mid koowaad hada aan ka jawaabo waqtigaaga dadka laba nooc oo kala baxan waa qof markuu subax soo kaco oo salaadiisa subax u tukado oo buug soo qaato oo maaragtay maalintiisa u balangareeyo waxa uu qaban lahaa wixii uu gurigiisa ku saabsan wixii caafimaadkiisa ku saabsan wixii mas'uulka dadku ku yahay ku saabsan ilmihiisa ama waxa laga yaabaa waalid inuu kugu xariiro waxaasoo dhan aad ka fikirtid oo aad dhahdid maanta wixii waqtigeyga saana u kala isticmaali lahaa waqtigeyga saana u kala baxsaday. mid waa qofkaas waqtiga u soo harana uu gaar uga dhigto oo nafsadiisa ku kobciyo sababtoo ah nafsadan waxa lagu siiyay dheeldheel maahan in Allah subhanahu wa ta'ala ku caabudid in Allah subhanahu wa ta'ala waxa ku caabudi lahaydna aad baratid knowledge-keedii adoona knowledge aan baranin maaragtay wax caabitaankaaga muxuu noqonaa sababtoo ah wixii Allah ku caabudi lahayd ina baratid waay sida salaado kale waa ina baratid salaada sida loo tukado maaragtay waxay leeyihiin step leeyihiin salaada sida maaragtay xitaa zakada step leedahay soonka wax walba aad baranaysid oo cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala kamida stage leeyihiin stageki waa ina nafsadaada waqti gelisid aad ku baratid salaado kale marka tukanaysid quraanku Allah ka rabo inaad ku tukatid waa ina quraanka taqaanid aad ku tukanaysid marka see ku baran kartaa quraankan marka aad ku tukanaysid waa ina baratid oo nafsadaada waqti aad siisid nafsadaada hadaad waqti siinin oo waqtiga adiga aad isticmaalin waxa ogaataa waqtiga asaa ku jiidanayo maalin kasta soo ku jiidanayo ee waxa kugu sii daraysaa bil ku sii jiita hadana waxa ku sii jiidatay 6 bilood hadana waxa ku sii jiidatay sanad 2 sano 5 sano cimriga ibn aadanka uu leeyahay meeqa sano cimrigaaga leedahay marka noloshaada marka waxa rabtaa miya inaad shalay ku jirtid oo markasta aad dhahdid marmarsiyo ma haysto waqtigeyga maaragtay waqti fiican aniga ma haysto ama hadhoodi markuu waqtiga ku dhaafo aan meel soo fariisatid oo cimrigaaga uu sii koro aad tiraahdid shalayaan ku noolaana waxa ku noolaana yani maanta hadii aan qabsan lahaa marka waqtigaas jiray hadii aan wax sameeysan lahaa marka da'daas aan jiray hadaa wax sameeysan lahaa marka noloshaada ma hartaa inaad ku jirtid shalay qodobka kale waxa rabaa si direct in la hadlo dadka waqtigooda ku dhamiyo maxaa la yiraahdaa politician
dadka waqtigooda ku dhameeyo inay xanta raadiyaan dadka waqtigooda ku dhameeyo war 1 minute haday ku dhaafto 1kaas minute waa 1 hour maalinta kale wuxuu ku noqonaysaa 3 hours ku dhumisay journal inaad soo qaadatid journalkaas wixii wasaqdi ku jirtay wax adi is leedahay waqti iskaga qaad ama waxa is leedahay raadi waxa adiga aadan sixi karin sababtoo adduunka ma sixi kartid wixii adduunku soo u shaqeynayo systemku adduunku u shaqeynayo wax adiga aad mas'uul ka tahay ma ahan wax adiga gacanta aad ku haysidna ma ahan xitaa hadaa aad akhrisid waxa ogaataa akhriskaas akhrinaysid in maskaxdaada aad dhaawicisid in maskaxdaada slow ka dhigaysid maskaxda maaragtay oo xoogaa hoos waxaan ka wadaa oo shaqadii ay shaqeyn lahayd active-ka ee noqon lahayd xoogaa slow noqoto sababtoo maskaxdii waxa ka buuxinaysa information aan loo baahnayn information ka loo baahan yahay waa knowledge information ka loo baahan yahay waa wax positive oo maskaxdaada beerta markii aad biyo ku waraabinaysid kuma waraabinaysid biyo la'aan oo ma dhehaysa beertan inay ii baxdaa rabaa maanta beertan waxaa rabaa inay anfacaado laakiin biyo ma haysti biyo kuma shubin ceel agteeda kama qodin okay maxaa sameynaysa ama booyad ama dadka biyaha meel ka soo shubtaan dadka baadiyaha jooga xitaa aaniyad gashitidna beerta inay ku baxdo kuma baxaysa beertaas maskaxdaada waa beer gudaheeda waxay ay kubacdaa markii wax wanaagsan ay hesho waxay dib u dhacdaa slow down ee noqotaa ama breakdown uu ku dhaco markaan waxaan wasaq ee soo gasho waxyaalaha wasaqada waxaa kamid negative-kana 100% wuxuu ka imaadaa wararku ka imaadaa newsku ka imaadaa journalka aan anything dheh tv-gaas ka imaadaa waxyaalahaas haddana wuxuu kasii imaadaa qof saaxiib xuna hadaa leedahay saaxiibkaas xunna uu ka sheekeynaa 24/7 qabiil hebel saanu dhahay qabyaalad hebel saanay tiri nation hebel saanay dhaheen country hebel saanay u kala baxeen sheekh hebel saasuu dhahay heblaay saasay tiri hebel saasuu dhahay haddii noloshaada aa waqtigaaga gelisid waxaa ogaataa inaa hal qof tahay adduunkan allah inuu adiga kali ku keenay adiga kalina in qabriga lagu dhigayo adiga kalina su-aasha inay kuu taalo qofkan laguma soo ag fariisiinayo ma lagu dhahayo qofkan su-aasha asahaafkaa qaadanayo qofkan kuu marmarsiiyona sababtoo family markaa leedahay adduunka wax kugu tari karaa aakhiro wax kuguma tari karaan waqtigaadana meesha ku dhumayso waa lagu weydiinaa cimrigaada meesha ku qasaarayso waa lagu weydiinaa meesha waqtigaada aad geysay oo aad focuskaaga aad ku leexisay allah subxaana watacaala wuu ku ogaa any action aad qaadayso wuu kula socdaa hadhowna beri marmarsiyadaas lagaama yeelayo oo aad ku dhahdid waqtigeyga waxaan ku dhimay meel inaad tago shiishad ama wax lagu cabo ama meel fasuq haddii aada cabin xataa fasuqaas wuu kusoo gaaraya ama aa is leedahay waxaan ku marmarsiyoona asxaabteeda raaca aniga ma cabin ma sameeyey oo aad la fariisatid maxaa ogaataa wasaqdaas in adigana la qaadanaysid in xitaa waxay kasii wasaq badan tahay saaxiib hadaa haysatid oo kelmadda ee markasta ku hadlaan u badan kelmad xun waxaa ogaataa adigana kelmadaas xun inaa sawirkaas maskaxdaada ay gelayso oo hadhowdii adigoona is ogeyn kelmadaas wax lamida raadinayo oo research sameynayo internetka galayo oo dhahayo waxaasaa rabaa inaa ogaado sababtoo maskaxdeena waa sensitive isma controlno waxaa aragnaana controlo sawir maskaxdeena waa taa inay sheegay sawir wax ku aragtaa maanta hadaa wax rab inaa barto visual inaa ku fiiriyo waay sawirkaas maskaxdaad sawiranayso xasuustan lagu sheegaya maxay tahay sheeg afka waxa ka akhrisay waa xasuusatay laakiin picture maskaxda gelinaysa maskaxda sawir isu bedelaysa waxa laga yaabaa hadii meel quraan ku akhrin jirtay oo afadin jirtay quraanka ku xifdiso kale ama aayad quraan ama wax ku baratay ama xadiis in maskaxdaada saa u joogtid marka aayadaas akhrinaysid aad soo xasuusatid meeshii aad fadhiday meeshii dadka kula baratay dadka kula fadhiyay wixii oo dhan yaa sawiray maskaxdaada sawiratay laakiin ma ogtaa maskaxdaada inay sawiranayso meelaha xun ama meelaha maaragta xun waxaan ka wadaa ani qof xunaata kuma lihi laakiin waxaan ka wadaa meelaha oo waqtiga kaa qaadayo oo negative-ka maskaxdaada ku reebayo in maskaxdaada ay sawiranayso oo adiga beri aad raadinaysid laakiin see uga badbaadi kartaa waqtigaaga adi control waqtiga yuusa adi ku controlling berina shalaatiga awadid it will never work adeysid waqtigeyga intuu ka baxay kanuu sameeyay kan wax ma qaban karo ama maanta dadku waxa u badan in ku marmarsiyoon hadaa tiraahdid okay qofkan kale waxba kuma dhaamo qofkan waxbuu qabsaday wuu dadaalay laakiin qalad kale yani dadaal kale muusa sameynin waqtigiisuu controlay subax markuu soo kaco waqti samaystay timetable uu samaystay oo nafsadiisu uu samaystay timetable familkiisu uu samaystay timetable waqti wax ku baran lahaa
sababtoo nafsadan xaqi kugu leedahay laftigeeda inaad time siisid in aad siisid time dadka mas-uulka ka tahay oo guriga kugula nool ama ay ahaadaan caruurta dhashay ama waalidkaaga ahaadaan ama ay ahaadaan dadka adiga mas-uul ka tahay in adiga mas-uuliyadeeda aad kasoo baxdid aad meel ku qoratid iyo tii wax aad ku baran lahayd meel aad ku gaari lahayd haddii noloshaada aad saddexdaas ka dhigtid waxaa ogaa qof kasta oo taas sameeya today inuu liibaanayo inuu gaarayo wuxuu rabay laakiin haddaad reality intaad ku nooshahay news iyo qabiil hebel muxuu dhahay hebel muxuu dhahay aa ku jirtid niyadaada ha gelinin internetka motivation ha gelin intaad book soo qaadato gurigaada lacag iyo kaa khasaarin oo dukaan aad tagtid book soo gadatid waqtigaas ka qaadin ilmahaaga ku dhihin waxaa rabaa inaad wax baratiin inaad dad fiican noqotiin aan rabo ha dhihin waxaad u dhihinin adiga isdhisin nafsadaada adiga isdhis hadhowna berri waxaa leedahay because adigay kaa badanaysaa qabyaaladii waxaa kaa badanaya negativekii berri waxaa kusoo baxaysaa adiga inaad raasatid hadhowna waa isdagaalaysiin maxaa isu dagaalaysiin because waxaa meesha dhex dhigateena iskaga hor imaanaysaan hadhowna waxaa leedahay ani waxaa qabaa dad i necab aniga waxaan leeyahay dad aniga ay arki karin yaa abuurtay oo waxaasoo dhan samaystayna waa adiga wax walbana waxay ku bilowdaan slow wax yaray ku bilowdaan waxa yarkaana waxaa waay inaad facebook soo gashid oo pagekaaga qof kuu soo dhigo qof wax caynaayo ama qof waxeynayo ama qof oo ku dhahayo informationkaasaa hayaa adigana informationkaa ku oroday informationkaas adiga muxuu kuu taraa ii sheeg noloshaada ma wax ku isweydii horta first question aa isweydiisid qof hadduu clip kula wadaago ama dawlad ha ka socoto ama wax kasta ha ka socdo oo ama qof lagu xumeynayo ama qof wax lagu dhahayo horta question ani maxaa iigu jira dheh ani wax maan ka helaa anfacad mow aakhiro maa wax uga helaa no adduun maa wax uga helaa oo wax maa isoo galaayo no nafsadeeda maa wax ku baranayso no haddee afartaas no kuusoo tuurto inaad noloshaada aad dib u fiirisid aad tirahdid okay nolosheeda waxbaa ka qaldan marka haddii aan kan ku raaco laakiin haddii aad dhanka kale u leexatid oo sida aan kuu sheegay aad samaysid oo noloshaada adiga in charge u noqotid sababtoo haddii kale waxaa ogaataa tv-gaas ninka keenay inuu adiga remote-ka kuu haayo inuuna ogahay inta milyan oo dad fiirsato waxyaalaha politicianka ku saabsan newspaperka ay soo saaraan they know inaad daawatid inta view oo soo gashay ogyihiin haddana waxay kuu ogyihiin inaad muslim tahay labo in waqtiga ay kaa qaadeen sababtoo qofka muslimka inuu waqtigiisa ogyahay waaye waqtigaaga meeshaa ku bixisay waqtigaaga meeshaa gelisay so waxaa ogaataa adiga dhan in remote control lagu noqdo berina generationkan oo ilmaha cusub oo hadda dhalanayo inaad adi celin karin sababtoo adiga is celin weysay adiga waxa iska celin weysay waxyaalaha xun inaad fiirsatid adiga waxa iska celin weysay in newska maanta dhan 24/7 aad fiirsatid waxa iska celin weysay in xanta agtaada lagu sameeyna aadan iska joojinin sababtoo dadka maantay especially dadka Yurub ku nool meelaha jirta isugu imaadaan meel marka isugu imaatiin ma fiirisay qofkan maxaa ka kordhisan karaa ani qofkan ani muxuu ii taraa sababtoo you know time markaan ku dhahay 1 minute qof uu ii sheekeena 1 minute haddii ku jirin wax positive ama wax wanaag igu jirin halkaas iga joogay 1 minute uu iga qasaara because nafsadeeda nafsadaada inaad ka dhigtid waa high standard meesha ka dhigi lahayd qof kale ah ka filan lahayd inuu expectation ka qabileed qofkaas high standard siin lahayd taada high standard see iskala weynow in 1 minute ee kaaga dhunto wax qaldan taas ka xanaaq waxaad tiraahdaa nafsadeeda ka weyn waqtiga qofkan kuma dhuminaya sababtoo qofkan koobshaa ila cab xataa hadduu ku dhaho waa inaa maskaxdaada foojignow miisaan qofkan maxaa ka kororsan karaa muxuu ii taraa qofkan inaa ogaatid waa adigana sidoo kale nafsadaada waxa ogaataa dadka kale isaas ku cabirayaan dadka wanaagsan oo adigana saas qashinka lagu daraa lagu dhahay qofkan waxba ma ii taraayo sababtoo ani dadka kama xishoodo mana ka baqo daacadda u sheegaas waxaan u dhahay adinka idin la wadaaga waxay tahay markayga hore ma sameyn jirin waxa ahaa waa ka xishoon jiray anigu waxaan xataa la wadin laakiin qalada ku lahaa waa ka xishoon jiray inaad dhahay heblo ama hebel stop warka ay ugu wadid waxaas dhigi jiray qofkan ha ku hadalka ku celinin let them talk لأدم هاسك ساران وحى ماركتي وعلوشو ذو كجرتو لكن وحى أقاذي إني أنيجا أفكت إيجارسينيسي أنيجا سلو داون قناي وحبرشد إيجو أتكاتي نلوش أدونك سامو أركاي إيقال داناتي صوبت نلوش أدونك وحكون قنسا أدون فالحن وحكون قنسا وحول بإني أدقيهين
nothing adag ma jirto adiga aday ka dhigtay maskaxdana waxa ku dhaay marka soo bilaabo cajalada waa hadalkayga hore ku jirtay slow down noqotaa hoos u degtaa wixii hoos ugu degtaa negative ka markuu bato maskaxdeenan machine waaye machiinkaas energy ku shaqeeya mashiinkan wuxuu ku shaqeeyaa focus wuxuu ku shaqeeyaa inaad go'aan leedahay wuxuu ku shaqeeyaa in go'aankaagu adag yahay wuxuu ku shaqeeyaa in maskaxdaada ma aragtay wax walba oo soo galay aad iska ilaalinaysid sababtoo waa guri weyn oo palace guryaha waa weyn ay leeyihiin dadka queen ama king isku sheego palace aad u weyn waaye ama football meelaha footballka lagu ciyaaro wixii aad geliso soo bixitaankiisa way adag tahay inay ku wareegsato waaye adigu kugu soo noqoto maxaa loo dhahay wax yaraantaada markaa yartahay waxa kugu soo noqdo loopkaas kugu soo laabanayo effect weyn ku gaarsiinayaan sababtoo isma lihid wax yaraanteeda effect i gaarsiin karo maskaxdaada ma soo galayso laakiin maxay ku gaarsiisay maskaxda ilaahay ku siiyay ilaa haddeertan scientists-ka way soo saari laayihiin how big it is wax walbo aad geliso way ku wasaqeynaysaa way ku heynaysaa marka adiga iyo job maxay tahay shaqadaada ma taqaanaa in security guard aad noqotid in aad iska ilaalisid wax maskaxdaada soo galayo in aad u foojignaatid dadka aad la fadhidid wixii qofkan maxaa iigu jira dhaani horta kow muxuu ii sameynaa qofkan muxuu ii anfacaa nolosheeda diiniyana kuma qaldanid sababtoo waxaa lagu dhahay good companion yeelo dad asxaab wanaagsan oo adiga wax ku soo gelinayo adigana aad wax gelin kartid laakiin adiga haddaad daciif tahay oo asxaab xun aad la tirsan tahay oo noloshaadan aad ku haysid meel inaa gaaraa rabaa aniga waxba ii haysto waxbarashada igu adag maaragtay maskaxdeeda way adag tahay business aan furtay waan kora u qaadi la'ahay isfiiri adiga isfiiri dib isugu noqo timekeyga subax ka bilow buugii qalin ku qoro waqtigeyga xaggee ku dhumiyey waqtigeyga xaggee geeyey yaase la sheekaysta how many saaxiiba leeyahay how many times saaxiibku waxaa kasii daran oo husband ama wife kuu noqdo waa internetka aad kasoo gashid dhanka politics ama ha ahaado dhanka xanta ama dhanka gossip ama dhanka dadka hobolada aad dhihaysid hebel qaladkaasu leedahay hebel xaaska lagu guursaday hebel intuu ka baxay hebel adiga isno iyo job adduunka ilaahay wuxuu kuu keen kuma keenin ina adiga soo tiri koobtid dadka adduunka ku nool qaladaadka ka dhaco let alone dadka wanaagsan xataa qaladaad dadka wanaagsan xataa ina soo tiri koobtid at least haddaad dadka wanaagsan soo tiri koobaysa aad leedahay hebel wuu wanaagsan yahay waxaa helaysaa positive energy kusoo galaya oo positive ah maskaxdaada hadduu rabo qofka aadan la sheekaysan laakiin positivekiisa kusoo galaya because waxaa ogaanaysaa qofkaas horumarku gaaray qaabku ku gaaray go-aankiisoo adkaa waxyaalihii uu qabsaday waxyaalihii meel uu ku gaaraa kuu sawir maayo laakiin qofkan kale maxaa ka heshay waa qof ibni aadan adigoo kale waa qof qaldami karo marka hadalkayga intaas kusoo gabagabeenaya iska ilaali qofkaa la socotid iyo waqtigaagana ilaasho negative kana iska ilaali si kugu soo gali lahaa maskaxdaadana ogow wixii soo gala inay kuu haynayso aadan u mahadsantihiin the only thing aydin kaga tagaa 24 saacadood adigaa choice kale waqtiga meeshaa gelin lahayd iyo waqtigaada meeshaa ku xisaabin lahayd haddaada adiga qalin in buug u qaadan waqtigaaga xisaabsanna asagaa ku xisaabsamaayo sababtoo ah fraction xisaabta jajabka markii la sameynayo way kala baxdaa half two waxay u kala baxdaa sooma waqtigaada 3 half ka kala dhigo half nolosha ilmaha iyo gurigaaga oo allahna ku caabudid subhanahu wa ta'ala half waxa adiga ku anfici lahayd nafsadaada half ka kale waxa baratid dadka waxa walaalaha ku gaarsiinad ku anfici lahayd nafsadaada waqtiga intaas u kala waxayso أن الله سبحانه وتعالى أنه ودن هنودن حريستو الله سبحانه وتعالى ودد توسن هنو هنونيو أنت دبعتسن أنت حنوسن الله سبحانه وتعالى عاويو الله وحاوغ بريا أمد إسلام كميل جوكتن لأن إنه إلهي ون كديو إلهي إنه أنت أمد صومالي ملكست إيجوغان إيغانا ون إلهي إنه كديو وكسو هدي إن من نخضان من نمدو كتوسان وانا إيوان السلام دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته